burco xasuuqii 43 qof taxanaha Soomaali waa walaalo qaybtana waa qaybtii afraad qorshuhu wuxuu ahaa in la toogto 45 ninba balse waxaa laga reebay indho deero iyo koofiyad dheere oo labaduba ahaayeen ganacsadayaal lacag badan ku lahaa bangiyada badanka 43 nin ee la toogtay waxa ay ku xidhnaayeen xabsiga dhexe ee Burco waxaana ay ku xukunaayeen waxyaabo kala duwan qaar badan waxay ahaayeen ganacsatadii jaadka ee ku eedeysnaa inay soo dhoofiyeen jaadka bishii December 1984 kolkii ay dawladdu ka war heshay joogitaanka ee sanam ee buuraha Shiikh waxaa la laalay idil ahaan xukunadii loo haystay 43kaasi maxbuus waxaana si isku mid ah hal mar loogu wada xukumay inay xiriir la leeyihiin sanam dhibanayaashaas qaar ka mid ah waxaa laga soo ururiyay magaalada Shiikh waxaana la geeyay Burco waxaa la xukumay iyada oo aan la sugin wax maxkamad ah waxaana dhammaantood la toogtay isla maalintii kolka laga reebo 2 nin indho deero iyo koofiyad dheere dabcan waxa ay ka baqayeen in dilka labadaas nin ee magaca leh uu cimrigooga soo gaabin karo Maryan oo ahayd hooyo 8 caruur ah dhashay ninkeeguna wuxuu ku jiray 43 nin ee la tooganayay askartii dawladda ayaa albaabka gurigeega ku soo garaacay si ay goobjoog ugu noqoto toogashada ninkeega iyo 42 kale oo ay welibana sacab iyo mashxaradna iskugu darto hooyadaasi waxa ay diiday albaabkiina way furi weyday ilaa iyo ay askartii inta ay albaabkii ku jabiyeen ay timaha soo qabteen wiil dhimbi la oran jiray oo goobtaasi joogay ayaa aad uga xumaaday ciidankiina wuxuu ka bariyay inay hooyada sidan ka daayaan balse mid askartii ka mid ahaa ayaa ku soo jeedsaday oo isla bartii ku toogtay dilka dhimbiil tirada xasuuqa maalinta wuxuu ka dhigay 44 qof dhacdadan qof kasta oo reer Burco ah oo maalintaas burcad joogay uu xasuustaa go'aanka 43 qof ee magaalada Burco lagu xasuuqay 20 December 1984 todobadii subaxnimo ayaa lagu toogtay kaabada madaarka Burco bal halkan aynu daalacano qaar ka mid ah dadkii maalintaasi joogay oo ka waramaya mahadhada iyo taariikhda ay ku reebtay xasuustooda albaabkay garaaceen aabba ka furay waa ka haysteen runtii raggaasi qaarba mar baa la qabtay muddo 2 bilood ah ayuu horta marka hore aabba xidhnaa October bay ahayd markii la qabtay Decemberna waa la dilay dhamaadkeedii runtii aabba habeenkii subaxii markaan la kaxeeyay subaxii baan ugu tagnay xirada ciidanka runtii dadka saldhig Blaze iyo Deebar Jabin iyo meel kale la sii marin jiray laakiin si xiradii militariga ee weynayd gudaheeda ayaa ragga lagu xidhay halkii baan cuntada ugu geynay aabba markaa wuxuu muujiyay inaan rajo jirin iyo dardaaran inta kadib 2 bilood cunto in la ka qaada mooyaane nolol ma arag inta waxa xigtay maalintii arintan aqalkii Soomaaliland laga dhawaaqay lagu gaamiyay raaliga hada yar hadan emotional noqdo runtii waxaan jecelahay calankana arkaysaan dad badan baa ku suntan meelo badan baa ku suntan Soomaaliland aan ilaalino tabankii markay ahayd baa gaari lagu qaaday kuwii la oran jiray kuwii militariga raggii oo dhan anagoo arkayna dabadna State House-kii Burco waa garanaysan Soomaha State House-kii baa daflisiyay waanu daba soconay waanu daba galnay meeshii oo ciidanka iyo waxa taagan magaaladii Burcona halka ay taagan tahay 12 duhurnimo meel ku dhowdahay ayaa hadana baabuurka dib loogu guro waati lillaahiyay sidii lagu qaado iyarka bacdina si daba ornay la maxaan ku dhahdayay garoonkii halka khayri xigtay anagoo laamiga staa u taagan halkii warshada leyrka ayaan arkayna barsaasta iyo halka ragga lagu leenayo markaa maalintaas waxay ahayd maalin madow nidaamkii ka jilanayay meesha wuxuu ugu talagalay ugu qoysgoyn halkankii ka socday dibadda SNM ugu qoysgoynayo dadweynihii deganaa halkaa ayuu sameeyay
taasu waxaynu odhan karnaa kuma koobnayn burco qura waxay ku koobnayd dalka oo dhan magaalada gabiley la yidhaahdo dadku isagoo noolba lagu guriya ceelasha iyaga oo nool ayaa inta la soo qabtay inta gaas lagu shubay la gubi waa gabiley hargeysa way noogeyn oo boqol baa la isugu xidhay way kala horreeyeen dadkani ilaa ugu dambayntii intii xamar u yaacday ee joogtay ee xeebta jasiira la geynayay markaas taliskii ka tiranayay waddanku waxay ahayd mid ugu talagalay dadkaas deganaa gobolladii waqooyi dhulka imika loo yaqaan Somaliland inaanu xasuuq uu ku dhameeyo taasusayan mar dambe u dhacdeen mar dambe taasusayan u dhacdeen waa sidee waa Somaliland oo lagu adkaysto waa Somaliland oo lagu adkaysto waa Somaliland oo cadawgeeda la barto waayo maxaan markaa u leeyahay walaa nin weyna waanahay waxa laga yaabaa waxaad inaan qaar u qaataan inaan wax kala firdhinayo kalama firdhinaye isku darkii iyo dawladnimadii Soomaaliyeed aynu qiirsanin waxaynu Faarax Umar yiri intuu maalin u sameeyay dad afuro buuga kuma qoran sheekadaas buuga war akhri ayuu yiri dadka uu hakicina wuxuu yiri dabayl shii xorriyadda Afrika ka dhacaysa Somaliland bay ka dhacaysa xorriyadda la helaa buu yiri nin aad u maartay u sheeshbay dheer bahado meel wax ka eega xorriyadda la helaa Somaliland baa lagu leynayaa buu yiri waqti dhacday Somaliland baa lagu leeyahay jigjigay ahayd arrintan afuro Ramadaan intuu dad furiyay marka waxaan leeyahay arrintaas sayan u dhicin nimayahu inaynu taariikh ka sameeyno sidee baan uga badbaadi karnaa aanu taagada ilaashano aan Soomaali waxa u soo marnay maanta qofka garanaya ciyaar u dayaci maayo Soomaaliland inay mataaftaan tahay waaba inoo ahdi هلا لو قالوا إن ولد يعني ولي أنا هراك تاجلها يعني أنا عندنا لو بيمانين